waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Trump oo isku khilaafsan mustaqbalka safarada Mareykanka ee Soomaaliya. Qasaare dhimasho dhaawaca oo ka dhashay israasaaseyn ka dhacday ilinka hore ee laga ilaaliyo garoonka magaalada Muqdisho. Turkiga iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo ku saabsan saameynta iyo soo saaritaanka shidaalka. Wafuud isugu jirta xildhibaano, wasiirro iyo siyaasiyiin ayaa ku sii qulqulaya laasacaanood halkaasi oo lagu wado in uu booqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dagaal xoogan oo maalinkii saddexaad ka socda deegaanka Abuurey ee gobolka Hiiraan. Askarta ka soo carartay furimaha dagaalka oo dowladda Soomaaliya sheegtay in xabsi ay ku shubtay. iyo golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay heshiis u dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar iyaga oo ka hadlay dagaalka ka socda dalka. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. soo dhawaada markale daawadayaal, mas'uuliyiinta maamulka Trump ayaa isku khilaafsan mustaqbalka safarada Mareykanka ee Soomaaliya. warar ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka gaar ahaan wargeyska The New York Times ayaa shaaca ka qaaday in khilaafka xoogan ee ka dhex aloosan yahay mas'uuliyiinta maamulka madaxweyne Donald Trump kaasi oo la xiriira mustaqbalka safarada Mareykanka ee ku taal caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. khilaafkan ayaa salka ku haya dood la xiriirta in safarada ay ka sii furnaato caasimadda Muqdisho si loo muujiyo sida Mareykanka ay uga go'an tahay taageerada iyo joogitaankiisa Soomaaliya ama in safarada loo raro dal kale oo daris ah sababa la xiriira walaaca dhinaca amniga ee ka jira gobolka. qaar ka mid ah saraakiisha maamulka Trump ayaa ku dooday in joogitaanka safarada ee Muqdisho uu xambaarsan yahay fariin siyaasadeed oo muhiim u ah xiriirka labada dal, halka kuwa kalena ay shaaciyeen in xaaladda amni ee Muqdisho ay khatar weyn ay ku hayso badbaadada shaqaalaha diblomaasiyadda Mareykanka ama diblomaasiyiinta Mareykanka, sidaa darteedna ay habboon tahay in safaaradooda loo raro meel ammaan ah. doodan ayaa imaanaysa xilli maamulka Trump uu wajahayo caqabado waaweyn oo la xiriira siyaasaddiisa dibadda gaar ahaan meelaha ay colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya. sidoo kale khilaafkan ayaa imaanaya kadib markii bishii Febraayo ee sanadkan 2025 maamulka Trump uu si rasmi ah u xiray hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka USAID, taasi oo lagu tilmaamay mid dhaawac weyn gaarsiisay dadaalada gargaarka iyo horumarineed ee Mareykanku uu ka waday caalamka. xiritaanka USAID ayaa sababtay warar bahsan oo saameeyay shaqaalaha hay'adda iyo mashaariicdii ay ka waday dalal badan oo dunida ah, gaar ahaan Soomaaliya oo kamid ah meelaha ugu nugul ee gargaarka dibadda ee Mareykanka uu fidin jiray. go'aanka kama dambaysta ah ayaa laga gaari doonaa mustaqbalka safarada Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa inuu saameyn ballaaran oo ku yeesho xiriirka Washington la leedahay dalalka Geeska Afrika iyo istiraatiijiyadda amni ee gobolka. markaan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay israasaaseyn ka dhacday ilinka hore ee laga ilaaliyo garoonka Muqdisho. 3 qof oo shacab iyo askar isugu jirta ayaa dhimasho dhaawac uu ku noqday israasaaseyn kooban oo ka dhacday ilinka hore ee kontaroolka laga ilaaliyo garoonka magaalada Muqdisho ee lambar 4 kadib markii ciidamada ammaanka iyo xubno waday meydka marxuum Allah u naxariistay General Sheego Axmed Cali ay is-afdhaafeen. qof goobjooga ah oo HBN la hadlay ayaa u sheegay in ciidamada amnigu ay ka dalbadeen dad badan oo daba socday marxuumka meydkiisa oo la waday in laga reebo oo garoonka oo loo waday dadkaasna laga reebo, balse ay ka dhaga adeegeen dadkii waday, taasi oo sababtay in ciidamada ammaanka ay rasaas ay isdhaafsadaan iyaga iyo xubnihii kale ee askartaha ee wax ka waday meydka marxuumka. waxaa ku dhintay 1 askari, 2 qof oo qof shacab yahay qofna askari yahay ayaa dhaawac ka soo gaaray. intaasi kadib meydka General Sheego ayaa maanta loo qaaday magaalada Jowhar xilli eheladiisu ay dalbanayeen in lagu aaso deegaanka Xawaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xaaladdu hadda waa mid degan, waxaana laga sugayaa wararka soo baxa laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wixii dhacay sida ay u dhaceen iyo qaabka dowladda Soomaaliya falkaasi ay uga jawaabto. Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo ku saabsan saameynta iyo soo saaritaanka shidaalka. dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo cusub oo kor u qaadaysa iskaashiga tamarta ee ka dhaxeeya labada dal kadib markii kulan looga hadlayay
xaaladda tamarta shidaal soo saaritaanka Soomaaliya oo heer wasiirra oo ka dhacay wasaaradda tamarta ee dalka Turkiga. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka batroolka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya Daahir Shirab Maxamed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dalka Turkiga. Inta uu socday kulanka, labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada tamarta iyo kheyraadka dabiiciga, gaar ahaan sahminta iyo soo saaritaanka shidaalka ee Soomaaliya. Kulanka kadib shirkadda qaranka ee Turkish Petroleum Corporation TPAO iyo maamulka batroolka ee Soomaaliya SBA ayaa waxa kulan ay kala saxiixdeen heshiiskaas oo ku saabsanaa sahminta iyo soo saaritaanka macdanta amaba kheyraadka dabiiciga ah ee saliidda iyo gaaska ee Soomaaliya. Heshiiskan ayaa shirkadda shidaalka ee dalka Turkiga waxa uu siinayaa xaquuq ay ku fulin karto sahminta shidaal dhuleed oo lagu cabirayo 2D ama 3D, taasi oo laga samayn doono 3 goobood oo ku yaala gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo dhul ahaan gaaraya 16 kiiloomitir oo laba jibaaran. Marka la dhameeyo sahmintan, shirkadda TPAO ayaa qorsheynaysa in ay bilowdo howlaheeda qodista shidaalka iyadoo oo ka duuleysa xogta iyo macluumaadka ka soo baxa sahminteeda. Waxaan rajaynaynaa in wejigan cusub ee aan ka bilownay gudaha dhulka Soomaaliya kadib guulihii laga gaaray howlihii badda uu noqon doono mid barako iyo horumar u horseeda labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga, ayaa lagu yiri warkan oo la soo dhigay bogga X wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Albarslan Bayraktar oo boggiisa soo dhigay. Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa muujiyay in heshiiskan uu yahay mid kor u qaadaya xiriirka taariikheed ee istiraatiiji ahaan ee labada dal u dhexeeya, isla markaasina uu ka dhigay Soomaaliya goob muhiim u ah maalgashiga tamarta ee gobolka. Waxaa la rajaynayaa in heshiiskan uu noqon doono mid wax weyn ka tari doona horumarka dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya, iyada oo sidoo kale sare loo qaadayo iskaashiga Turkiga iyo Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan. warar kale ayaa noo soo socda, balse markaan aan aadno SSC Qaatumo. Wafuud isugu jirta xildhibaano, wasiirro iyo siyaasiyiin ayaa kusii qulqulaya magaalada Laascaanood, halkaasi oo lagu wado inuu booqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Magaalada Laascaanood ayaa waxaa maantay si dabajooga u gaaray wafuud isugu jirta xildhibaano, wasiirro, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ka qayb noqon doona socdaalka lagu wado inuu ku gaaro SSC Qaatumo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Wafuudan ayaa u socdaalay Laascaanood iyaga oo ka qayb qaadanaya diyaar garowga iyo soo dhaweynta Xamse Cabdi Barre oo la filayo inuu booqasho rasmi ah ku tago magaalada caasimada u ah SSC Qaatumo ee Laascaanood, waxaana uu kulamo la qaadan doonaa madaxda iyo bulshada rayidka. Booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay la xiriirto dadaalada dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku doonayso xoojinta nabadda, wada hadalka iyo dib u heshiisiinta gobolka, xilli ay weli jiraan caqabado iyo xaalado siyaasadeed oo ka taagan SSC Qaatumo. Wararka qaar ayaa sheegaya in wafuudda imaanaysa Laascaanood ay qayb ka yihiin xubno si dhow ugu howlan arrimaha nabadda, siyaasiyiinta deegaanka ah iyo xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada deegaanka ee SSC Qaatumo. waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ee magaalada Laascaanood gaaraan xubno kale oo dheeraad ah si ay uga qayb galaan kulamada iyo shirarka la xiriira booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. waayahay markaan Hiiraan aanu aadno, dagaal xoogan ayaa maalinkii saddexaad wuxuu ka socdaa deegaanka Abuurre ee gobolka Hiiraan. wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus uu maalinkii saddexaad ka socdo deegaanka Abuurre oo hoostaga degmada Bulaburde. Dagaalkan ayaa u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo dagaalyahanada Al-Shabaab, iyadoo la xaqiijiyay in dagaalkan uu ka socdo duleedka deegaanka Abuurre. Afhayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee Abuukar Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada huwanta ah ay gaarsiiyeen Al-Shabaab khasaare xoogan intii uu socday dagaalka, inkasta oo uu xusay in faahfaahinta dheeraadka dib laga soo sheegayo khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray kooxda Al-Shabaab. Wallow uu sheegay in khasaare badan la gaarsiiyo kooxda oo uu tilmaamay in meydad badan oo kooxda la keenay deegaanka. Dagaalka ayaa la tilmaamay in uu weli si goosgoos uga socdo qaybo ka mid ah deegaanka Abuurre, iyadoo ciidamada dawladdu ay wadaan howlgallo ballaaran oo lagu doonayo sida hadalka loo dhigay in lagu cirib tiro kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaanaysanaysa deegaanada gobolka Hiiraan. dhinaca kale, howlgallo kala duwan ayaa ka socda gobolada kala duwan ee dalka, gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Si gaar ah gobolka Shabeellaha Dhexe, dagaallo ayaa ka socda, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dagaallo xoogan oo ay la galayaan kooxda Al-Shabaab.
warar arrintaasi la xiriirtana askar ka soo carartay furimaha hore ee dagaalka ayaa dowladda Soomaaliya sheegtay in xabsi lagu shubay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Sarreeye Gaas Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ka hadlay dagaalka shalay looga saaray al-shabaab deegaanka Galgub ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo qasaare lagu gaarsiiyay kooxda al-shabaab ayaa sheegay in ciidamada asluubta ay ku lahaayeen kaalin mugle dagaalkaasi halkaasi ka dhacay oo uu sheegay in kaalin muhiim ah ay ka qaateen askarta ka soo carartay furimaha dagaalka oo kamid ah kuwa asluubta iyo carabaabay taliya Mahad in dowladda Soomaaliya ay xabsi ku shubtay halka qaarkoodna baxsad ahna ay wali lagu daba jiro dadkii fulayga ahaa rag isku mid ma ah goobta dagaalka lagu kala baxaa dadkii fulayga ahaa oo goobtii ayadayd ka soo noqday annaga Muqdisho kuma sii deynin iyo guryahooda waa soo qabanay waaran baan u jirnay xabsigan ku shubnay ya niman deynay ma jiro nin naga fakaday aan wali laanahay waa jira oo baadi goobayn asna maray taaba mar un waa helayna ayaan min al-ayaam mar un gacanta waa ku dhageynaa toddobaadyo ka hor taliyaha ciidamada asluubta ayaa digniin ka soo saaray ciidamada furimaha hore ee dagaalka ka soo baxa isaga oo sheegay in ciqaab adag la marsiin doono askarigii ka soo baxa goobaha dagaalka ee loo diray ugu dambeyntiina golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Masar iyaga oo ka hadlay dagaalka ka socda dalka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ansixiyay heshiiska baasaboorka diblomaasiga ah ee lagu dhoofayo ee dalalka Soomaaliya iyo Masar ay isku kala dhoofayaan ayaa golahu waxa uu maantay oo Khamiisa uu ka yeeshay kulan muhiim ah oo lagu dhameystiraya arrintaasi kaasi oo dhigaya in dadka wata baasaboorada diblomaasiga ah ee labada dal si xor ah ay ugu safri karaan gudaha labada dal muddo 90 cisho gudahooda iyada oo aan la doonayn in dalku galka fiisaha loo jaro shirka golaha wasiirada oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu cadeeyay in heshiiskan uu qayb u ka yahay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Masar iyo Soomaaliya heshiiska ayaa si rasmi ah waxa loo ansixiyay loo saxiixay laguna saxiixay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar 23 bishii Janaayo ee ka soo gudubnay sanadkan 2025 waxaana saxiixayaasha ay kala hayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo dhigiisa dalka Masar ee Dr. Badr Abdulcaati munaasabada saxiixa heshiiskaasi waxaa joogay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cabdilfataax Al-Siisi heshiiskan ujeedkiisu waxay tahay fududeynta socdaalka iyo diblomaasiyiinta labada dal oo si xor ah u kala gudbi kara labada dal dhanka kale golaha wasiirada ayaa bogaadiyay howlgallada dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobolada dalka iyaga oo lagu soo bandhigay warbixino la xiriira amniga guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray howlgallada ka socda qayb ka mid ah dalka golaha wasiirada ayaa bogaadiyay geesiyaasha ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ee ka qayb qaadanaya howlgalka argagixisada lagu sifaynayo iyada oo la xusayo muhiimadda ay leedahay in la dardargeliyo taageerada lagu garab istaagayo ciidamada lana xoojinayo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo bulshada ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee Soomaaliya qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka caawa ee Soomaalida oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Muqdisho ee HBN Online TV waxa inaga xasuusina inaad mar walba wararkeena kala socon kartid bogga internetka aan ku leenahay hbnonlinetv.com sidoo kale bogaggeena kala duwan Facebook, YouTube, X, Telegram iyo TikTok ayaad mar kasta wararkeena kala socon kartaa inta ka horeysa